السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ جيستي الكسر وهذا برنامج كي حلاشة دلجر ومالنمو أحد تاريخ ذو حيكون بيجنتاي طبعا كبيش أفراد لبكون يلبي اللباتن قضبضة برنامج حلاشة دلجر دهور نمدانا تكون جيسان دونتانا وحكمد قدوميها عصوبة دقمة وفاين أو كهد لي دورشة وكسو بحي يقرشها هريالا guddiga gurmadka abaaraha degmada Buurtinle oo gaarsiiyay 75 qoys deeqo loogu talagalay warbixin ayaad ku maqli doontaan barnaamijka tartan iyo tacliin oo warbaahinta Daljir ka baxa bisha barakaysan ee Rabadaan oo xalay tartan xiiso badan uu ku dhex maray dugsiyada sare ee Puntland warbixin ayaad ku dhageysan doontaan dadka la nool xanuunka dhiigkarka iyo sida bisha barakaysan ee Rabadaan ay u wajihi karaan waraysi ayaad ku maqli doontaan aabe Soomaaliyeed oo la ildaran xanuun ka haleelay kaliyaha oo codsaday in la caawiyo guddiga doorashada heer federaal oo shaaciyay tiradii ugu badnayd ee qaatay shahaadada xildhibaannimo qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xulashada Daljir waxa kale oo aad ku dhageysan doontaan xubinta sicirka iyo suuqa stuudiyaha Daljir Boosaaso ayuu idinka imanayaa inta aan ku guda jiro anoo deganaya barnaamijka idinla socodsiinaya waxaad naga dhageysanaysaan dhammaan efamiyada ku baahsan dhul udug galmudug qaybo kamid ah Somaliland dawlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan dhanka baraha bulshadana waxaad nagala socotaan Facebook live abka Daljir webka Daljir YouTube stream live carra idil oo dhan ayaad naga dhageysanaysaan u diyaar garooba mar kale barnaamijkii xulashada Daljir waa hagaag intaan aanu guda galin sidaad qodobadaba aad ku soo maqasheen intaas oo dhan waxa ka soo hormaraya warkii xulashada deeqaladan ayaa u diyaara deeqo mahadsanid Faadmo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Godyaanyo ee koonfurta Mudug halkaasi oo ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in howlgalka lagu burburiyay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay sidoo kalena ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ciidamada daraawiishta iyo kuwa deegaanka Qararow ayaa warbaahinta dowladda u xaqiijiyay in howlgalkan uu daba socdo xogo ay heleen isla markaana ay sii wadi doonaan saacadihii la soo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xubno ka tirsan Al-Shabaab hayeeshee ciidamada daraawiishta Galmudug ayaa sheegay inay ka hortageen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii toddobaad waxa ay magaalada Muqdisho ka wadaan diiwaangelinta iyo shahaadasiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubnihii ugu horeeyay ee maanta shahaadada qaatay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharax madaxweyne iyo xildhibaan Cabdi Samed Macalin Maxamuud oo uu dhalay hogaamiyaha Ahlus Sunna guddiga ayaa wali ka wada magaalada Muqdisho shahaadasiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo oo maanta shahaado la siinayo ilaa dhowr iyo 10 xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaan wali la siin shahaadada xildhibaannimo iyadoo oo ay ka gadoodeen in 3 kamid ah kuraasta laga soo doortay maamulkaasi ay guddigu hakiyaan faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku dhex maray ciidamada Kenya iyo kuwa ka tirsan AMISOM oo isku dhinaca iyo ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii la sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saddex ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Qooqane oo hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Shabeellada Hoose dadka deegaanka Qooqane ee degmada Afmadow ayaa waxay sheegeen in ay maqleen dhawqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac sidoo kalena uu jiro khasaaro dhaawac ah oo dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayida sidoo kale waxa ay sheegeen in cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalku socday maadaama ay ka baqdeen qabaan inay waxyeello ka soo gaadho dagaalka wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay deegaanka Qooqane oo lagu dagaalamay ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaq ciidan maadaama saldhiggii ay ku lahaayeen lagu soo weeraray guud ahaan waayga inta warkii oo kooban oo qayb ka barnaamijka xulashada aan dib idinku celiyo isagoo dhameystiran iyo Faadmo Degan mahadsanid haatan qadar adeega bulshada ah
adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh xujo maalmo kugu yahay waadigan xasilayo xuurto beeray oo degay golis baa xanaaniyo xasil kuugu filan oo kuu xirmaysay internetkii ugu xawaaro sarreeyey isticmaalka xirmooyinka internetka golis waxa ay kala yihiin daily ama maalin leh 25 senti waxay la mid tahay 300 oo MB 50 senti waxay la mid tahay 1 GB $1 waxay la mid tahay 2 GB $2 waxay la mid tahay 4 GB $3 waxay la mid tahay 6 GB $5 na waxa ay la mid tahay 15 GB weekly ama toddobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 oo MB 50 senti waxay la mid tahay 500 oo MB $1 waxay la mid tahay 1 GB $2 waxay la mid tahay 3 GB $3 waxay la mid tahay 5 GB $5 na waxay la mid tahay 12 GB hagaag aan gudagale barnaamijka degmada Ufayn ayaa dhawaan waxa loo doortay gudoomiye cusub kaas oo ku soo baxay doorasho ka dhacday degmadaasi oo qof iyo cod ahayd gudoomiyaha cusub ee degmadaasi Axmed Abshir ayaa nooga waramay waxay uga dhignay doorashadaasi iyo qorshaha horyaala waa kan isagoo arinkaasi iga waramay alxamdulillah wa salaam dhamaan ummadda reer Puntland gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa dadkii doortay ee degmada Ufayn sidoo kale aniga waxay iga dhimay maalin taariikhiyeed yahay maalin aan la iloobi karin bay ahayd gaar ahaan reer Puntland dhanba waxay maalin taariikhiyeed aysan iloobi karin 6 sano kadib waxa la oran karaa waa markii ugu horeysay oo gudoomiye nooca kan la doorto qol iyo xalaal ah oo ku soo baxa codka shacabka waa gartay dadka reer Ufayneed ee codkooda aad ku soo baxday maxay ka filan karaan walaal deganaad baa mahadsan tahay waxay iga filanayaan shaqo wanaagsan shaqadii ay iga barteen oo hawlkarnimada u hayay oo aan marka hore dadnimada igu arkeen oo isdheheen Axmed uu ka hogaamin karaa 5 sano oo soo socda oo kalsoonidooda ay siiyeen rajaynaya insha Allah inaan meel fiican gaarsiiyo maamuladii hore hab doorasho ahaan ayaad kaga duwan tahay maxaa la is oran karaa maamul ahaan waa kaga duwanaan kartaa faadmo maamulada hore soo socoto hab qabiiliga oo odayaal wax ku soo xili jireen xildhibaanada wax doorta hasa haddii haddaan waxa wax doortay waa shacab ilaa 10 kun oo qof gaaraya oo degmada Ufayn deegaanada hoos yimaado oo dhan ah marka waxaan aaminsanahay shacabku inay la xisaabtami karaan miiska noo garaaci karaan sababtoo iyaga safaf dhaafay noo galay iyaga noo doortay iyaga waqtina gashay marka waxaan aaminsanahay inaan la xisaab celin ku sameeyno wixii ay insha Allah shaqo ay aanu qabanana ay ku qanci doonaan darbiga idmo waa gartay gudoomiye waxa aad ku guda jirtaa sidii hawsha tan aad ula wareegi lahayd waxaana jira deegaanada hoos yimaada degmada Ufayn abaara ayaa ka jira qorshahaaga muxuu yahay alxamdulillah horta hadda waxaan aad ugu mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee cusbaa shaqadoodii koowaad bay shalay qabteen waxay sameeyeen lacag bay isku ururiyeen fiican ilaa iyo hadda 5 booyadooda biyaha bay ku deeqeen oo waxay geeyeen deegaanka Geesaqabad iyo deegaanka Xabley abaar baan baa jira sida loo ogyahay dadkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala deeq kada Ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka koowaad inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala deeq degdeg dadka la soo gaarsiiyo subhanahu wa ta'ala Allah uu dadka baahi tiri kara marka xigana insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka deegaanka ka soo jeeda oo ama jaaliyada noqdeen waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka si degdeg u soo gaaraan maadaama insha Allah abaar baan iyo biyo la'aan baan ay ka jirto doorashada wax badan ka duwan tahay habkii wax lagu dooran jiray runtii hadda ninkii aan kartamaynay oo siyaasadeedka ka runtii isku meel baan ka soo jeednaa mana isa suurtoodeen haddii aanu habkii hore wax lagu dooranayo inaanu labayadu usoo istaagno xilka gudoomiyaha degmada Ufayn marka taa ruuxadeeda waxaan aaminsanahay in shacabkuna wax xisaabtan karaan in ay tii hore wax badan ka duwan tahay tii hore xisaabtankeeda uu adkaa ama qofku hab qabiil meesha ku joogay laakiin waxaan aaminsanahay maanta inaanu ku nimi cod aqlabiyad leh cod shacab mid indhala iyo mid dagala iyo mid riyaana iyo habar umulayso dad badan baan doortay insha Allah waxaan rajaynaynaa in nala xisaabtamaanin haddii aanu gudan weynana waajibaadka ay leeyihiin ayna mariyaan waa gartay doorashada dad badan ayaa isha ku hayay fariintaada ugu dambaysa aad u diraysid dadka reer Puntland doorashooyin kan oo kaleeto baahida u qaba iyo sidoo kale dadkii ku soo doortay marka waxaan leeyahay dadka reer Ufayn aad baa u mahadsantihiin waqtiga dheeraa iyo safafkii dheerada ay soo gasheen Ufayn deegaanada hoos yimaada waxaan leeyahay guul baas ka gaadheen guul taariikhiya oo insha Allah isqori doonta oo laga sheekeyn doono ka gaadheen
taas reer ufeenada iyo deegaanada hoosmaan u dardaarmaya. tan kale waxaan leeyahay reer puntland waad ujeedaan in degmada ufeen guusha taariikhiga ah ay gaadhay. insha allah qardana aan ka rajeynayna durrito in ay ka dhacdo sidaasi lamid ah. waxaan rajeynaynaa insha allah 3 degmo markay dhamaato inay reer puntland u dhaqaaqaan habka xisbiyada badan dimuqraadiyadda ah, sababtoo ah insha allah dad badan oo aqoon iyo maskax iyo fikir badan la haya oo ay leeyihiin habkii ay kusoo gudbin lahaayeen baa bulshada ku dhex jira. marka waxaan leenahay insha allah reer puntland oo tashada oo isku tashada oo u dhaqaaqa habka dimuqraadiyadda. hagaag kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ufeen Axmed Abshir Siciid oo naga waramayay doorashada iyo waxa ay uga dhignayd. hagaag guddiga gurmadka abaaraha degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa 75 qoys waxa ay gaarsiiyeen deeq loogu talagalay. wariyahana Axmed Cabdi Axmed Deeq ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan waxa uu ka soo diray magaalada Buurtinle. guddiga gurmadka abaaraha degmada Buurtinle ayaa deeq raashin gaarsiiyay 75 qoys oo danyar ah kuwaas oo ku nool gudaha degmada iyo kaamoka barakacayaasha. deeqda raashinka ayaa waxa ku deeqday shirkadda isgaarsiinta Golis xarunta degmada Buurtinle oo ugu talagashay in dadka danyarta ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. ugu horreyn guddiga gurmadka abaaraha degmada oo shirkaddu u soo wakiiltay deeqda raashinka ayaa uga mahadceliyeen. maanta oo taariikhdu ay tahay 10 bisha afraad 2022 waxaan joognaa degmada Buurtinle. waxaanu nahay guddigii gurmadka abaaraha ee degmada Buurtinle. maanta waxaan qaybinay raashin 75 qoys ah ayaa halkan ku qaybinay. raashinkan oo ah shirkadda Golis ee isgaarsiinta ayaa noogu deeqday oo tayo bixiya. annagana waa fulinayna guddigii baan nahay 75 qoys oo shirkadda Golis ay ugu deeqday. khayr Allah si shirkadda Golis Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakeeyo bulshada shaqo fiican bay u hayaan. 75 qoys ayaan ku wareejinay dadka duruufeysanaya oo dhibaateysanaya ah. marka barnaamijkaas ayaa maanta hawlka degmada aan ku fulinay annagoo guddigii abaaraha ee degmada Buurtinle. saaka oo ay taariikhdu tahay 10 bishii afraad 2022 waxaan joognaa degmada Buurtinle annagoo ah guddigii tabarucaadka iyo dadka abaaraysan oo dhiban afurka iyo maaragtay sadaqada ururinayay. saaka waxaan bixinay 75 qoys raashinkood. raashinkaas waxaa ku deeqday shirkadda Golis ee isgaarsiinta ee degmada Buurtinle qaybta maaragtay joogta ay nagu wareejiyeen iyagoo wakiil uga ah Golis oo dhan. waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Golis waxooda ha u barakeeyo, ganacsigooda Allah u barakeeyo, sadaqada ay la bixin Allah u barakeeyo. waxaan rajaynaynaa shirkadihii kale oo maaragtay deegaanka ka jiray inay ku daydaan Golis oo dadka masaakiinta ay gaarsiiyaan. annaguna waxaan gaarsiinay amaanadii ay noo dhiibtay Golis saakan dadkii masaakiinta ah oo ku habboon gaarsiinay. khayr baan rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halkan uga mahadcelinaynaa shirkadda Golis oo saaka degmada Buurtinle ku afurisay 75 qoys oo dadkii duruufaha baan ay haysteen. deeqdaas waxay soo marisay guddiga tabarucaadka abaaraha way soo marisay. annaguna waxa weeye saaka baan waxa u qaybinay oo 10 ay bishu tahay. waxaan leenahay jazakumullahu khayr jazaa. Golis Allah barakeeyo ganacsigooda, Allah barakeeyo dadka masaakiintaana waxa yaro la siiyay Ilaahay ku anfaco deeqdiisana ha u furo. ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay xogaha dowladda hoose degmada Buurtinle Faarax Maxamed Cigaal. maanta taariikhdu tahay 10 bisha afraad 2022 waxaan ku suganahay xarunta degmada Buurtinle xarunta dowladda hoose degmada Buurtinle. waxaan halkan ku qaybinaynaa deeq raashin oo afur ah. deeqdaasi waxa qaybinaya guddiga tabarucaadka abaaraha ee degmada Buurtinle. waxaana deeqdan ku deeqday kambaniga Golis xaruntiisa degmada Buurtinle. ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa ta'ala awalan wa aakhiran. bacdallahina waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Golis iyo mas'uuliyiinteeda gaar ahaan degmada Buurtinle deeqdaas ugu deeqay dadka. waxay ku soo beegeen kuna soo beegantay xilli ay baahi jirto dadku ay caawinaad aad ugu baahnaayeen. waxay kaloo ku soo beegantay bishii barakeysnayd ee sadaqadu ay aad iyo aad u ajar badan tahay. waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. ilaahay waxaan leenahay subhanahu wa ta'ala xoolahooda ugu barakeeyo, miisaankooda xasanaadkana ha ugu daro. jazaakumullahu khayran ayaan leenahay. waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddiga gurmadka abaaraha degmada ka shaqeynaya ee sida xilkasnimada wanaagsan u shaqeynaya runtii iyagana oo ducaynayna Ilaahay khayr ha siiyo.
dadka la siiyeyna waxaan u rajaynaa ilaahay inuu ku anfaco insha Allah kamariyada kale ee deegaanka degan iyo kuwa naga fogo dhammaan baaqa u dirsanana waxaan ka sugaynaa jawaab insha Allah sidaas si leeg in iyagu nooga soo jawaabaan dalabkooda iyo codsigu noola jira dhammaan jawaab baan ka sugaynaa iyagana dhawaan aan ka helaan rajaynaynaa iyo cidii kale ee wax way deeq ku tabarucaysa ee dadkaas caawinaysa waxna sadaqaysanaysa dhammaan guddigu heegan bay u yihiin shaqada inay qabtaan sacrifice sameeyaan iyagu ay waqtigooda iyo naftooda ay bixiyaan inay dadka u shaqeeyaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed cabdi axmed ee qurbaynta daljir report xagaag barnaamijku waa xulashada daljir dadka qaba xanuunka dhiigkarka ayaa kusoo badanaya deegaanada Soomaalida haddaba xanuunkaasi iyo waxa uu yahay iyo sida daawooyinka loo qaadan karo bisha barakaysan ee Ramadaan waxa aan waraysi la yeelanay Dr. Saciid Cabdiwale Saleebaan Yaasiin Saaso ayuu u waramay cudurka dhiigkarka Soomaalidu ay u taqaano waa qofka cadaadiska dhiigu inuu kaco oo heerkii loogu talagalay ama sida caadiga ku ah normalka ka kaco marka dadka waxaa la dhahaa 139 wixii ka dambeeya markuu gaaro oo dhaafagu wuxuu yahay baa la dhihi karaa dhiigkar asaga laftirkiisu heerar buu kala leeyahay marka dhiigkarkana inta badan waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo loo yaqaano primary iyo secondary qaybta primaryga waa qaybta badan 95% baa la dhahaa lagu qiyaasaa wax keena oo la yiraahdo waxaasaa keenana lama yaqaan hal yani da'da iyo nolosha dadka iyo waxaasay la xiriirtaa marka wax la dhihi karo qofkaas waxaasaa ku keenay ma jirto shanta soo hadha waxaa la yiraahdaa secondary waxa keena xanuun qofku inuu kaliyaha ka buko inuu beerka ka buko inuu wadnaha ka buko inuu waxa weeye cholesterol iyo waxyaalaha la mid ah qabo inuu xididada dhiigga qaada ka buko waxyaalahaas xanuunada qofka la nool hadow inay ku soo baxdo dhiigkar noqdo ama dhiigkar ay ku dhacdo waa laga yaabaa baa la dhahaa xanuunkan calaamadaha uu leeyahay waxaa ka mid ah qofku marka uu ugu horeyso arko madax wareer tabar darro wadna xanuun waxyaalahaas uu dareemaya wadnaha garaacma marka calaamadahaasa ugu muhiimsan oo calaamadaha uu qofku isku arki karo marka da uu qofku uu ku dhici karo ama age uu leeyahay ma jirta iyada way jirtaa qofku markasta uu da'diisu weynaato risk factor buu yahay baa la dhahaa waxyaalaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah qofku inuu dhaxlo oo kale oo dadka waalidkiisa oo kale inay qabeen hooyadii aabihii ayeeyadii dadkaas oo kale hadday qabeen wuu dhaxli karaa baa la dhahayo inuu ku dhaco waa laga yaabaayo mar walba xilligii ayaga uu ku dhacay inuu kaga soo hormaraa laga yaabaa marka dadka waaweyn buu baday dadka waaweynna sababta keenta waxa weeye ama xanuuno kale la nool yihiin ama waxa weeye xididadooda jilca oo waxa weeye balaarta waxyaalahaasa keena qofku waa daoobaya sirkiisa waa yaraanaya wadnihiiba awood yaraanaya waxa weeye cadaadiska dhiiggiisa isbedelaya xididadiiba isbedelaya sababahaasa marka waxay keeni karaan inuu qofkaas markastoo uu sii weynaado risk factor inuu yahay ama inuu bahalka leeyahay dhiigkar inuu ku dhaco inuu khatar ugu jiro qaladka keenaysa oo Soomaalida inta badan u dilo oo xanuunka dhiigkarka u dilo xanuunada wuxuu ka mid yahay dhiigkarku lala noolaan karo oo una baahan in aad la saaxiibto dawo horta intaa qaadata kaa dabar jaraysaa ma jirto oo inta sidii bahalka la yidhaahdo buraseelkii oo kale ama xanuunada caadiga ah ee dadka ku dhaca intaad cunto lagu dhahayo qofkaas waa dawooba dawadii uu ku dawoobo laakiin wuxuu leeyahay marka uu kugu dhaco oo lagaa helo qofka waxaa la dhahaa 3 jeer oo kala duwan waa in la cabiro isagoo degan 3 jeer oo isku xiga oo kala duwan oo maalmo iyo habeen kala ah haddii la cabiro oo dhiiggiisu mar walba uu sarreeyo cadaadiskiisu dhiigana 2 qaybood baa loo qaybiyaa qaybta sare iyo qaybta hoose labadaba waa ku dhici karaa midna waa ku dhici karaa يعني medical terminology waxa lagu yiraahdaa systolic iyo diastolic laakiin Soomaalidu waxay u shaqaan cadaadiska dhiigga sare iyo cadaadiska dhiigga hoose marka mid ahaan waa ugu dhici karaa labadana waa ugu dhici karaa sidaas awgeed marka qofku goorta uu lagu xaqiijiyo ama loo sheego uu dhakhtar la kulmo inuu dhiigkar qabo loo sheego sababta ugu wanaagsan waa inuu dawada sidii loogu talagalay u qaato inta badan dawadiisu dawadi badan maahan hal waqti baa la cunaa haduuna qofka controlka ka bixin oo uusan dhiiggiisu mar walba aad u kacaynin subaxii kaliya la cunaa marka inuu dawadiisa qaato oo si joogta u qaato oo uusan meel isaga tuurin oo jeebka ku qaato iyo boorsada uu wato iyo shayga ugu dhow oo meeshii waqtigii marka uu gaaro uu cuno baa ugu dhow laakiin hadduu qofku dawadii iska jarjaro waxaa dhici karta inuu hadhow controlka ka baxo kabacdina ay dawadii waxba ka tari weydo
waayo limit buu leeyahay 24 saacba mar waa inuu cunaa nooca ay tahay oo loo qoray dawadaasu oo dhakhtarku u qoray iyadoo la qiimeynayo heerka dhiiggiisu marayo isaga laftirkiisa stage waxaa jira dawo badan u baahan stage 2 waqti la qaato stage 1 waqti la qaato inta badan qofka marka hore oo lagu arko marka waa mid la control karay si uu badan yahay sidaas awgeed marka waa inuu dawadiisa joogtada u qaato oo dawadiisa uusan kala googoyn hadduu laakiin dawadii kala googooyo qofkii waxaa imaan kartaa hadhow inay xididadii jilcaan dhiiggii inuu controlka ka baxo marka dambe inuu stroke iyo waxyaalo kale u gudbo keliyaha inuu ku dhufto maskaxda inuu dhiig ku furmo yani waxyaalo fara badan oo uu keeni karaa wadnaha laftirkiisa inuu waxyeeleeyo dhiiggaas xawliga ah wadnaha ku dhacaya ama ka baxaya hadhow waxaa dhici karta wadnihii inuu qofku ka bukoodo la dhaho qofkii marka dambena wadnuhu ka bukaa maskaxdii buu ka bukaa indhihii buu beelayo indhihii buu ka riday yani dhayihii baa cuslaaday beerkuu ka jiran yahay doctor iyadoo xilli rabadaan lagu jiro dadka xanuunka dhiikarka qaba bal talada aad siinayso iyo xilliga dawada ay qaadan karaan ni horta dawada inta badan waxaa la qaataa ka subax baa la qaataa dad habeenkii qaataana way jiraan haddii uu dhiigooda aada u siyaadsan yahay cadaadiskiisu marka talada aan siin lahaa dadka aroortii qaata waxay qaataan aroortii salaada markay kasoo baxaan waadna ogtahay hadda waxaa la suxuurtaa salaada adinkeeda hore wixii ka horeeyaa la suxuurtaa marka goorta uu suxuuranayo oo intaan adinka hore la cadimin 10 ilaa 9 inta udhaxayso qofku hadduu cuno dawadiisii oo si caadi u cuno oo kabacdi uu suxuurto 12 way u egtaa maqribkiina waa afuraya hadduu marka maqribkii xitaa cuni jiray xilligii maqribkii ayada cuni jiray ama fiidkii waxaa ka gaaraya afurkii waayo afurkii baa ku beegan marka waa inuusan ka tegin xilligaas oo uusan hurdada jeclaysan ama uu dhihin waa habeenbar laakiin waqti badan uma dhexeeyo waa 2 saac 3 saac soonka ha ka taga dhihi maayo taasu dee waxay la xiriirtaa arrin diineed weeye laakiin waqtigii waa waqti u dhow oo lagu bedeli karo xilliga suxuurta hadduu dawadiisii si toosa u qaato hadduu maqribkii qaadan jirayna uu ayr markuu afura qaato inay enaf tahay oo ku filan tahay baan u malaynaya haddii aysan xaaladdu soo siyaadin markaas oo aysan xaalad siyaada imaan qofka mar waxaa jirta waxaanu wax maahan waqti ku xidhan waxaa laga yaaba qofkii inuu xanaaqo ama shaqo qabto ama kulayl qabto waxyaalahaas inay ku kiciyaan dee markii uu ku kiciyo oo xaalad caafimaad ay la soo deristo oo qofkii ilaan xanuunkii goorta uu qabo wuu dareemaya ama wuu baranaya calaamadihiisii uu dareemo maanta inuu ku kacsan yahay sabab inuu xilligaa dhiiggaa la dejiyo oo la furo uu afuro ka fursanaysa ma garanayo kolley waa arrin diin la xiriirta culimada in la weydiiyaa fiican laakiin hadduu kaco oo aada u kacsan yahay qofkiina uu sooman yahay markaas xaaladiisu khatar buu gelin karaa cunooyinka uu qaadan karo qofkaasi maadaama uu xilli rabadaan ay tahay xanuunka dhiikarkan oo hayo cunooyinka uu qaadan karo marka maxay noqon karaan horta dadka xanuunka dhiikarka qabaa cuntooyinka oo dhan inta badan way qaadan karaan hal cuntaa markii laga rabo cuntada waxaa laga ilaaliyaa cusbo in lagu daro iyo cuntada cusbada badan cuntooyin waxaa jira sidooda marka horeba cusbo ku timaado oo cunta ku jira sida waxyaalahan dandhanaanka ah oo kale yani cusbaa ku shiidan ama cusbaa ku jirta soomaalidana waa taqaanaayo waxay karsanahayaanba 2 koombo cusbaa bay ku darayaan marka waxyaalaha cusbada leh inuu iska kaantaroolo baa fiican sidoo kale waxyaalaha baruurta badan baastada iyo kale uma fiicna laakiin cuntooyinka uu qudaarta ka samaysan cuntooyinka geedmiroodka ka samaysan sida haruurka haada sareenka haddii ilaahay ku ron yahay soorta kulligood waa caadi bariiska xitaa waa caadi keliya waa inuu cusbada iska yareeyo uusan cusbo badan ku darin cuntadiisa qofka dhiikarka qaba sonkortoo kale maaha khatartiisu asaga waxay ku xiran tahay cusbada cuntada ku jirtay ku xiran tahay marka cuntooyinka oo dhan asagu badanaa wuu iska cuni karaa walow baastada iyo waxyaalaha baruurta ku badan tahay ay la fiican tahay in la iska reebo caafimaad ahaanba xitaa dadkeenan caadiga aysan u fiicnayn laakiin cuntooyinka oo dhan asagu wuu cuni karaa cusbada laakiin waa inuu iska kontaroolo cusbada aada isaga yareeyo sidoo kale waxa baruurta le waa inuu iska yareeyo waxa baruurta le uma fiicna iyo cuntooyinka ay ku badan tahay cusbadu ama ku samaysan tahay hagaag barnaamijku waa xulashada daljir barnaamijka tartan iyo tacliin oo warbaahinta daljir ka baxa bisha barakaysan ee rabadaan ayaa xalay waxaa isku arkay qaar ka mid ah dugsiyada sare oo barnaamijkaasi ku tartamayay haddaba warbixin xiiso badan waxaynoo ka diyaariyey cabdishakuur muxiidiin barnaamijka tartan iyo tacliin ee warbaahinta daljir ayaa xalay galay habeenkii 5aad waxaana fooda isku daray 6 iskool oo ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland
qaybta koowaad ee barnaamijka waxaa fooda isku daray dugsiga sare ee Muntada Secondary School oo ku yaala Qardho iyo Alwaaxa Secondary School oo ku yaala magaalada Garowe. Markii uu soo dhamaaday qaybtii koowaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. labada iskuul ee tartamayay Alwaaxa Garowe iyo Almuntada Qardho waa dadaaleen natiijada kale heleen waxay tahay 5 su'aalood baa qolob lahayd Alwaaxa Secondary School waxay si fiican uga jawaabeen su'aasha labaad iyo su'aasha afraad saddexda su'aalood oo kale oo koobaad iyo saddexaad iyo shanaadana tirada qayada mid nacib yihiin waa gafeen waxay halka ka heleen 4 dhibcood labada su'aalood ay ka jawaabeen min 2 dhibcood waxay ka faa'iideysay su'aasha koobaad oo ay soo gafeen Almuntada saas daraadeed waxay leeyihiin 4 iyo hal lagu daray 5 dhibcood bay leeyihiin Alwaaxa Almuntada Qardho waxay leeyihiin su'aasha labaad iyo su'aasha saddexaad iyo su'aasha afraad saddexdaas su'aalood si buuxday uga jawaabeen min 2 dhibcood bay ku heleen 3 su'aalood min 2 dhibcood waa 6 waxayna heleen ka faa'iideysina 2 dhibcood bay heleenoo saddexaad su'aashii ahayd iyo su'aashii shanaad oo ay Alwaaxa Garowe soo gafeen bay moogtay min hal ku heleen dhibic su'aashii koowaadna ma ayan ka faa'iideysan saas daraadeed 6 ay ka heleen su'aalahoodii iyo 2 ka faa'iideysiya 8 dhibcood bay sidaa ku yeesheen caawana guushii sidaasay waxay ku raacday Almuntada Qardho 8 iyo 5 bay qaybta labaad ee tartanka waxaa isku arkay dugsiyada sare ee Ceel Daahir iyo dugsiga sare ee Maxamed Cawaale ee ku yaala Boosaaso waxaana guushu ku raacday dugsiga sare ee Ceel Daahir oo kaga adkaaday natiijo 12-4 dhigiisa Maxamed Cawaale sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. labada iskuul ee tartamayay waxay ahaayeen Ceel Daahir Secondary School iyo Maxamed Cawaale Liibaan Secondary School mid walba 5 su'aalood buu lahaa su'aalihii Ceel Daahir la weydiiyey 5tiiba si fiican ayay uga jawaabeen 5 su'aalood oo 2 dhibcood ay ku heleen min 2 dhibcood waxa weeye 10 dhibcood 2 su'aalood oo ay soo dhinac mareen Maxamed Cawaale Liibaan oo gafeenna oo su'aasha afraad iyo su'aasha shanaad way ka faa'iideysteen min hal dhibic bay ku heleen saas daraadeed 10 dhibcood oo ay ku heleen jawaabahoodii su'aalahoodii la weydiiyey jawaabahoodii iyo 2 ka faa'iideysiya 10 iyo 2 ayay halkaa ku leeyihiin Maxamed Cawaale Liibaan waxay ka jawaabeen su'aasha labaad iyo su'aasha saddexaad oo sax ay uga jawaabeen halkaa waxay ku leeyihiin 4 dhibcood 2 su'aalood 2 jawaabood min 2 dhibcooda saddexda su'aalood oo kale oo 1 iyo 4 iyo 5 ahna way gafeen wax ka faa'iideysana ma leh saas daraadeed 4 dhibcood kaliya ayay leeyihiin guushiina waxay caawa sidaa ku raacday Ceel Daahir Secondary School oo 12 dhibcood helay. qaybta saddexaad ee barnaamijka waxaa fooda isku daray dugsiyada sare ee Mubaarak oo ku yaala caasimadda gobolka Highland ee Dhahar iyo dugsiga sare ee Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ee ku yaala caasimadda Puntland ee Garowe waxaana mar kale natiijada ku dhawaaqay Maxamed Faarax Ciise Gaashaan. labada dugsi oo tartamay waxay ahayd Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Secondary School oo Garowe ah iyo Mubaarak Secondary School oo Dhahar ah waxa mid walba la weydiiyey iskuul walba 5 su'aalood sida caadada 5 su'aalood Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan waxay ka jawaabeen su'aasha koobaad su'aasha saddexaad su'aasha afraad iyo su'aasha shanaad halka 4 jawaabood oo sax ah oo min 2 dhibcood bay heleen waa 8 dhibcood su'aasha labaadna way garan waayeen laakiin Mubaarak laftigoodu kama ayin faa'iideysan su'aashaas labaad oo ay gafeen Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Mubaarak Secondary School waxay ka jawaabeen si sax ah su'aasha koobaad su'aasha labaad iyo su'aasha shanaad halka 3 su'aalood oo si fiican uga jawaabeen oo min 2 dhibcood bay ku heleen waa 6 dhibcood su'aashii ay gafeen muxuu ahaayay su'aalaha ay gafeenna waa su'aasha saddexaad iyo su'aasha afraad Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan hal mid unbuu ka faa'iideystay oo su'aasha afraad
su-aasha saddexaadna kama faa'iidaysan saas daraaddeed hal dhibic oo faa'iidaha bay keensadeen 8doodii dhibcood oo ay jawaabaha ku heleen iyo hal dhibic oo ah faa'iidaysi 9kaa dhibcood bay leeyihiin doctor axmed xaaji cabdiraxmaan halka mubaarak secondary schoolna uu 6 dhibcood keliya leeyahay saas daraaddeedna caawa guushii waxay raacday doctor axmed xaaji cabdiraxmaan secondary school mabruuq waxaa caawa jira tartamo xiiso badan waxayna iskuulladu isugu dhacayaan sida tan dugsiga sare ee Dangarayo ayaa la tartami doona dhigiisa Xaaji Cabdullaahi Secondary School oo ku yaala degmada Beledidin ee gobolka Bari. Salaaxudiin Secondary School iyo dhigiisa Boocame Secondary School oo ku kala yaala degmooyinka Dhahar iyo Boocame ayaa isku arki doona qaybta labaad ee tartanka. qaybta saddexaad oo ah qaybta ugu dambaysa ee tartanka waxaa fooda isku dari doona dugsiyada sare ee Sunajiif iyo Imaamu Shaafici. cabdishakuur mixidiin cabdulqaadir cabdishakuur CMC raadiyo dali jirir Garowe. hagaag xulashada ayaa dhageysanaysaan. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay soo saareen liiska mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka 11aad ee ilaa iyo haatan qaatay shahaadada xildhibaanimo xilli 4 maalmood ay ka harsan tahay waqtiga dhaarinta xildhibaanada sida uu dhigayo jadwalka dhamaystirka doorashada oo dhawaan la faafiyay. bayaan ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in ilaa iyo hadda shahaadada xildhibaanimo ay qaateen 193 mudane oo isugu jira xildhibaano iyo senataro iyagoo ku booriyay xildhibaanada kale inay dhamaystiraan qaadashada shahaadadaasi. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Gareen ayaa dhaleeceeyay hanaanka guddiga doorashada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay ku wadaan habraaca doorashada xilli uu Khamiistii magaalada Baydhabo uu kula shireeyay xildhibaanada laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo weli qaadan shahaadada xildhibaanimo. xulashada ayaad maqlaysaan. aabba Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Saleebaan Ciise Cabdi ayaa waxa uu la ildaran yahay xanuun ka haleelay kaliyaha kaas oo wadanka wax laga qaban waayay sida uu noo sheegay waxaana uu dadka ka codsaday in la caawiyo. waxa uu waramay wariyaheena Yaasiin Seeso. anigoo magacayga ku bilaabaya Saleebaan Ciise Cabdi raxim maanta horta waa salaamaya muslimiinta meel ay joogaanba dalay dibad waxaan ahay nin xanuunsan 3 sano iyo bilo baa kaliyahayga la dhaqaayay anoo kalidii haysta oo heli kara baan waxaan awoodi kara waayay dhaqaalihii iyo kharashkii aan iskaga bixin lahaa. waxaan maanta muslimiinta u soo bandhigay oo isu soo qaawiyay bannaanka ugu soo baxay waa baahida intaa le'eg. waxaana muslimiinta ka rabaa baahida inay iga daboosho haddii ilaahay ii qadaro meelay joogaanba daliya dabadba reer u codan maayo maali ah wuxuu doona ha noqdo. baahidayduna waa noocaas maanta igu kaliftay inaan midiya intaan tago ka qayliyo oo ka dhawaaqo waa sababta noocaas ah. 3 sano iyo dhowr bilood ayaa kaliyahayga la dhaqaay asbuucii 3 jeer la dhaqaa. haddee xaaladaydu waa caynkaa wixii ummatul maxameda islaam shahaata hindiya waa tegey. hindiya markaan tegey ninkii kelida ii bixin lahaa baa sonkor laga helay. ninkii kharashka iyo dhaqaalaha iga bixin lahaana anoo hindiya joogaa la dili. markii isaga geeridiisii la ii soo sheegay tigidkii baan soo bedeshay dib baan Soomaaliya ugu soo noqday anoo waxba la ii qaban. kii kelida ii bedelna sonkor laga soo helay kii kharashka ii qabayna la dilay oo malaakamadu Ilaahay u soo diray. hadda i caawiyay oo aan ku sheegayaa ma jirto nolol maalmeed hadda dad bini aadan islaam Ilaahay iigu soo dhiibay way jirtaa oo igu caawiyay iyadana nolol maalmeedkaygii way ka fayn weyday garanaysaa. ilaahay baana haddee caafimaadka haya laakiinse muslimiinta waxaan ka codsanayaa baahida noocaasa ee wadda
oo aan la xishoon waayey waa asbuucii 3 jeer kaliya hayga la dhaqo intaan aamusi lahaa inaan islaamka u hadlo oo u qayshado yaan doorbida in la bedelo kaliyaha ma wax kale oo xal aan u haynaa ma jiro igu taxalluqa laba meelood waliba wax adduun oo aan meel ugu ogayn ilaah ma jiro amar ilaahay bay ku noolay ilaahay amarkiis bay ku noolay على كل حال باهدا يوضع وعينك إله بانا وعطي إسلامك المسلمين تحقق يا إلهي أنا أدونك يساها وحكوين مجرى صبنتو سديتني اللح لبعتني يسقال صبنتو سديتني اللح لبعتني يسقال أكون بانجرى وأن لا يحل أفرتني يسقال سقاشن xagaag barnaamijku waa xulashada daljir haatanna xubinta sicirka iyo suuqa yaasiin seeso ayaa mar kale inoo soo jeedinaya soo dhawaada dhagaystayaal iyo daawadayaal xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imanaysa magaalada Boosaaso waxaana idila socodsiinaya anigu ah Yaasiin Axmed Arsame Yaasiin Seeso aan ku bilownay kiishka sonkorta ayaa magaalada waxa la kala siisanayaa $29 kiishka bariiska ayaa la kala siisanayaa $7 kiishka burka ayaa la kala siisanayaa $8 kartoonka kalluunka Omar ayaa la kala siisanayaa $31 kartoonka baastada ee arta ayaa la kala siisanayaa $8 kartoonka sharaabka ee twisti ayaa la kala siisanayaa $6 kartoonka biyaha hubaal ayaa la kala siisanayaa $3 caagada saliidda ee xayaad ayaa la kala siisanayaa $7 dhanka kale suuqa qudaarta magaalada Boosaaso hadaynu eegno kiilooga bashasha ayaa la kala siisanayaa 0.9 kiilooga baradhada ayaa la kala siisanayaa 0.7 kiilooga yaanyada ayaa la kala siisanayaa 0. qaraha ayaa la kala siisanayaa $5 tiikha ayaa waxa la kala siisanayaa 0.6 xabada cambaha ayaa la kala siisanayaa 0.6 dhanka kale ee suuqa seelada xoolaha hadaynu eegno magaalada Boosaaso ariga qaliinka heerka koowaad ayaa la kala siisanayaa $118 heerka labaad $70 heerka saddexaad $60 dhanka kale ee suuqa seelada geela hadaynu eegno magaalada Boosaaso ayaa waxa la kala siisanayaa geela qaliinka $800 heerka labaad $550 heerka saddexaad $400 dhinaca kale ee shidaalka hadaynu eegno magaalada Boosaaso ayaa waxa la kala siisanayaa tanaga naafatada ah $20 tanaga baasiinka ayaa la kala siisanayaa $22 xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imanaysay magaalada Boosaaso waa naga inta waxaan idila socodsiinayay anigoo ah qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijka xulashada daljir stuudiyaha daljira Boosaaso ayuu idinka imanayay barnaamijkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo marti ilatiyo waqti duubano dabinada iblis laga daayo dadku taagay marti ilatiyo waqti duubano dabinada iblis laga daayo dadku taagay daa'imo wallow dadka yaga hago dibadiyo dalkaba u dabaasamo daadano hadee daa'imo wallow dadka yaga hago dibadiyo dalkaba u dabaalsamo daadano hadee daa'imo allow qalbi daacado samaka dalbada adadeeqsiyo degdeg ugu hure noo ajiib ducada faqri iyo danyari allow naga dubo dagalkiyo arlada noo doojiyo dalka noo nimcee faqri iyo danyari allow naga dubo dagalkiyo arlada noo doojiyo adalka noo nimcee eebow degmada khayraadka diin no dilaaciyo dulahaan islaam dayrkiyahaw eebow degmada khayraadka diin no dilaaciyo
dulahaan islaam dayrkii ahaw daa'imow allow qalbi daacado sama kaa dalbada adadeeqsiyo degdeg ugu huree noo ajiib ducada dadkayaga dhammaan daahow amiir muxubbadii ku dixii dowgii xaqiyo diintano adkee dadkayaga dhammaan daahow amiir muxubbadii ku dixii dowgii xaqiyo diintano adkee daa'imow allow qalbi daacado sama kaa dalbada adadeeqsiyo degdeg ugu huree noo ajiib ducada